daawadayaal sharafta leh halkaad naga daawanaysaan waa Ilwareed News. Khudbada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah William Ruto iyo Madaxweyne Cirro oo kulmay iyo xogta qodobada laga wada hadlay. Iyo qodob kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha NIS Sambulusho oo loogu yeeray xamar. Aynu ku bilownaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa aqalka madaxtooyada ee Kenya ku qaabilay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro. Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Kenya ayaa kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha Kenya William Ruto. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlaya arrimo badan oo muhiim u ah labada dhinac. Arrimahaasi oo qaarkood ay shaacisay madaxtooyada Somaliland. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac iyo xoojinta xiriirka ganacsi, maalgashiga, horumarinta dhaqaalaha iyo isu socodka diyaaradaha. Sidoo kale, waxay diiradda saareen xoojinta nabadda iyo amniga gobolka, gaar ahaan horumarinta xasilloonida, ka hortagga xagjirnimada, iyo taageerada dadaallada nabad-dhisidda ee Geeska Afrika. Intii uu socday kulanka labada madaxweyne, waxaa kale oo laga hadlay iskaashiga waxbarashada, isweydaarsiga tacliinta, awood-dhisidda hay'adaha dawliga, iyo kobcinta tababarka xirfadaha farsamada gacanta ee dhalinyarada. Kulankaasi waxa uu ahaa mid ay labada hogaamiye hoosta ka xariiqeen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya Somaliland iyo Kenya, ayaa lagu yiri bayaan ay madaxtooyada Somaliland soo saartay. Kulanka madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku qotoma sida ay madaxtooyada sheegtay taariikh fac weyn, is-ixtiraam, dana wadaag, aragti midaysan oo ku wajahan horumarka iyo barwaaqada mandaqada Geeska Afrika. Taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambulusho ayaa ka soo laabtay jiidda hore ee dagaalka ee degmada Moqokori, isaga oo shalay yimid magaalada Muqdisho. Imaanshaha Sambulusho ayaa la xiriirta kulan uu la qaadanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo inuu dhaco 24 saac ee soo socota. Sambulusho oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa furin dagaal ee gobolka Hiiraan ayaa ku howlanaa abaabulka macawisleyda iyo xoojinta dadaallada loogu jiro difaaca iyo ciribtirka ururka Al-Shabaab. Ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in Sambulusho uu ka fikirayo inuu booska baneeyo haddii uu isfaham ka soo bixi waayo kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga dhex mari doona. Isbeddelka NISA ayaa laga yaabaa in lagu soo beego waqtiga mucaaradka Muqdisho ku shiraan ay shaacinayaan warmurtiyeedka sida ay qorshaysay Villa Soomaaliya. Natiijada ka soo baxda kulanka madaxweynaha iyo agaasimaha NISA Sambulusho ayaa saameyn ku yeelan karta qorshaha iyo jadwalka madaxtooyada, maadaama ninkan uu aad u diidan yahay in xilka laga qaado. Labada toddobaad ee ugu dambeysay, hay'adda nabad sugidda waxay lahayd laba agaasim, kuwaas oo kala ah Sambulusho oo Moqokori ka soo shaqaynaya iyo Mahad Salaad oo gurigiisa hay'adda ka dhex hagaya oo shaqaalihiisa ugu jiraan, maadaama la siiyey kursiga. Mid si macnawi ah ayaa agaasimuhu u yahay oo kalsooni buuxda ayuu ku shaqaystaa, midka kalena in shaqada laga qaaday ayuu ogyahay oo shaacin keliya u dhiman tahay, balse wuu garowsan yahay in aan lagu dhiiran karin shaacinta go'aankaas inta uu furinta dagaalka joogo. Xaaladda NISA ayaa maalmahan ku jirtay jahwareer maamul oo ka dhashay kala beddelka daahay ee labada agaasime. Dad xogogaal u ah arrimaha ammaanka ayaa muujinaya khatar badan oo ka dhalan karta arrintan, maadaama uusan jirin agaasimo si dhab ah u dhibayso mas'uuliyadda wixii dhaca.